وبرنامجكي dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da waana qaybtii afaraad waayihii iyo sheekooyinkii garaad weelwaal dhagaystayaal sheekadii darteed uu weelwaal tibiro ku guursaday waataan toddobaadkii hore idin mariyay intuu awrka qalay waatuu raggii ku xujeeyay in mid waliba u keeno cadka ragga israaciya odayadii degmada midkood intuu xujadii gartay waatuu u keenay hungurigii ratiga kolkaasna inta dareen cusub ku soo kordhay waatuu weelwaal odaygii ku yiri war adigu xujadayda nin furi kale uma ekide yaa kuu sheegay odaygiina inta ka baqay garashadiisu inay galaafato waa kii ugu jawaabay waa runtaa garaad oo anigu nin wax garan kara ma ihi waxaan ka soo guuriyay inan aan dhalay oo cadkaan oo aad u dan lahayd ii sheegtay waatuu weelwaalna intuu gabadhii u bogay markiiba guddoomiyey inay isaga afadiisa noqoto waa kii sidaasna timiro ku guursaday kadib ninkii ay u doonanayd markuu ku aamusiiyey 10 sac oo dhaawacay xilaka qaadka malaha uu kaga dhayaayay maalin kale isaga oo awr ka baxsatay baadi goobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu leeyahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhawaan ruuman uu toddob helay ku kala baahay wuxuu abaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa faraskii uu ku joogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey dabadeedna ku yiri gabarey waxba awr baadi ah ma aragtay waxay tiri indha kama qaadin ha yeeshee balaan maleeye awrta mid dabali imu ku jiray wuxuu yiri haa markaas bay tiri mid illi isna ma ku jiray wuxuu ku jawaabay haa markaas bay ku tiri haddaba raadkoodii uun baan arkay ee ruuxoodii ma arage dhinacaas iyo qorrax dhaca balka baadi goob sidii ay kula talisay ayuu yeelay galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegay iyaga oo si wacan geedaha luqmaha ugula jira hareerigii toomahana ka hamuun beelay karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa weelwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay habeenkii meel uu ku bariyayba barqadii uu la kulmay teedihan ayuu isla meeshii ugu yimid iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey gabarey awrka dabadala sideebaad ku garatay markaas bay tiri awrtu kolka ay saaroonayso saynta ayay saarada ku kala firdhisaa kaaguse meel keliya ayuu tuuminayay oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey waa tahay midka isharacna sidee baad ku garatay waxay tiri geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac kaliya ayuu ka daaqayay ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn sidaas baana ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay subaxdaas buu weelwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quruud leh isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey caruurtiisa mooye inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin sidaas ayuu ku guursaday dahabaduula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd si kastaba ha ahaatee haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu weelwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu hana qaaday reer aabbihii u wareegay beri dambe ayaa weelwaal waxaa loo soo tabiyey dadka uu u taliyay qaarkood inay inankii xanteen kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin isagana aan ku bannaanayn hadalkii ayuu liqi kari waayey waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeen
sida uu dhaliilba u yeelan karo. dabadeedna inankii ayuu fariin u diray, isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin hebla geedka shirka inay ku soo beegaan. wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo, isaga oo aad moodo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin. maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo 3 su'aalood mar qura isu daba dhigay. wuxuu ku yidhi, maandhow xoola maxaad ka timid? maandhow xaraga maxaad ka timid? maandhow xaasna maxaad ka timid? inankiina isaga oo aan keyrkeyrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay, abti xoola waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna, xaragana waxaan ka imid geenyadii xamaro ahayd, xaasna xayn ari ah ayaan ka imid. waxay noqotay gargayrtii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen, si gaar ahna garaadkii u farax gelisay. kolka maxan dambaa jirta, wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday sow waxyaqaan inuu yahay looma wada qirin. sow isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayoo dhab ahaanna ay walaashii dhashay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo sheekooyin kale oo ku saabsan garaad wiilwaal.